قلت إلهي محضلي إلهي وين واحدين أبوريبا محضلي طلباتنا محض وحلا عيسى هو كلا صار مايو عيسى نبع رمضان هدو يهجد كل يقول بجوج عيسى لما أنتوا الله وحكى دورنا كي وحقبتي هيك الوراء في يونا وحقبت كاهي دقاجين سيدا دكتور كان جوجنو إسقولك وبيهم دم بيلقي شيء أو لقي شيء دبكي معلمين تاعي شغاده وضو قرب جوجا في شغيني أنا وحبك ما تسوي هذا كل من الله كذا دفترك لقى حنا وتمدري سرنت ما كلا شطول الشيء لقى حكي ليها تانو تمدري دام غير حريص إذا كان لوحي كدن ما أدري أنا لأنه الله وحنا كقبل كنا يتابعون لقى حكي وواحد كدر رجلين داورنا إنه هذا رأينا سوق بصننا وحفي عن ماها هذا الكائن هذا هرب بحيوها ما أنتنا لا صوت دونتي وحاينا وح دمادي يعني نمدي وأكو إسكير بجوجا بدوميه نكى دبر ظاهر مرة دكتور كشغيني ما مريه وحبر الشرق بيسي هوصل دحى ويود الجوجان وأنا أقول أنا دميني إنه نقلين بقول أنت نسوق قاعدين بالضبيش اللي قلين يا ضبيش أنا نخرب صوت وحين أنت كتلين جري وطول كتلين جري لما دليل راح كتلسو أما وضيع راح كتليان أما علي ما كتلسو وحين لقيت تلين لها يا ضبيش نقلسي قلين يا ضبيش صار نخرب طول وحول برنامج لكن خالية هذا أنا وقت يسوق قالوا لانكحنا بقول كيف بقول لانكحنا سيدا صار أنا وتانا الليلة هاي واحد من هاد وين يدين سو إلهي نقول بهالك يوم كسو بحشي وخير لإلهي هو يدرسو عافمات يجنو نقدر واحد هذاك تدخل الحياة للساي وأنا الجنة سنة يستويها إن والله أنت كشولي تكلا لقى حالا دقي يا رسالة بقول في بقول بكفر أحسن ما وردن كعيسى ده إني كم مقام مركي ورانا الصومالي كلا بقى قرب جوجس لكن عيسى ما تجوجا مركي ورانا الصومالي معي واحد اللي أنا ياسين محمد برخلة مكان يساعد أخو وحنا قالوا ما هنقي يا قرب جوجته ميل كستي جوجته قرب جوجته عيسى ميل كستي دوني الدافية جاي في جوجته قالوا ما هنقي وحقبت كم ماشي ما أنت عندك جوجنا وهوسبيتال أوجاس مصطفى waxaan oran karaa maanta qurbi joogtu waa wax qabadkii ugu ballaarnaa ay ka qabato marka gobolka ayaan maanta oran karaa dhakhtarkan ku yaala ay nasiib u yeelatay degmada Xariirad gaar ahaan gobolka Seleed ee ku taala gaar ahaan gobolka Seleed nasiib ayay u yeelatay maanta wax qabadkii ugu ballaarnaa ay dad shakhsiyaad ciise ay u soo deeqaan marka dadkooga ayaan la oran karaa maanta marka dadka gaar ahaan ururka Hudoon waxaan lahay aad ayaad u mahadsantihiin iyaga ururkaas iyo wixii kale ka qayb qaatay dhismahan hospitaalkan aad ayaad u mahadsantihiin baan lahay kulli waxaan u malayaa khilaafaad yar oo saa u sii ballaarnay inuu saxaafadda niga soo gaaray khilaafaadka wax maanta waqti xaaladkan aan joogno ahaa ma ahayn wuxuu ahaa waqti 6 bilood ku hor wax la sameeyay ayuu ahaa taa aawad marka maanta ayagu media la soo galiyay taasina ku xumeyn qof lagu xumeyn ay ahayd wax ka jira ma jiraan ayaa leenahay qurbi joogtu meel kasta joogtana waxaan leenahay aad ayaad u mahadsantihiin wax qabadka maanta ballaaran ee meeshan ka qabateen ummadiinii dalkiinii iyo dhulkiinii hooyo uu niga fadhiyaa kuwa ka simi wax qabadka aad qabateen wax qabadeed kale oo ka simi sameeyay sugaya dhakhtarka geerisa dhagax dhiga aad dhagax dhigteen waxaan leenahay aad ayaad u mahadsantihiin waxaa kaloo la sugaya jaamacaddii Abdulqaadir University Umar Qadi lughaye kadalika yadna marka waxaan leeyahay wax qabadku aad ayuu ballaaran yahay inakuna waxaan niga sugaynaa marka wax qabadka meel kasta ciise degan yahay in aad isku taxalluujisaan sidii aad wax uga qaban lahaydeen dadka joogana waxaan ka leeyahay in ay nigarab joogsadaan oo waxa aad u qabanaysaan munaafacaadkooda sidii aad ugu tala gasheen ay ugu munaafacaadaan iyagana taaban ku waaninaya insha Allah aad ayaad u mahadsantihiin ayaan ilaahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gunti iyo gabagabadii waxaa shirkaasi hadal mahadnaqa kooban ka soo jeediyey gudoomiyaha degmada Xariirad mudane Abubakar Xasan Guuleed
waxaanu yidhi كهدون diaspora dhismaha iyo qalabaynta isbitaalkan ba ugu deeqay degmada Xariirad run ahaantii waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay ifiya aakhiraba inuu ka abaal mariyo garashada ilaaha garashada siiyay inuu ugu soo deeqaan dhismaha iyo qalabaynta isbitaalka degmada Xariirad oo ah mid aad looga baahnaa oo adeega koowaad ee bulshada ummadda ay halkan aad ugu baahnayda sidoo kale waxaan hadda soo jeedinayaa ciddii loo xil saaray dhismaha caynkaas gacanta ku haysay ee fulisay isla markaana xafiday wixii qalab ahaa ee ummadda loogu soo deeqay intaa mahad balaaran baan soo jeedinayaa sidoo kale waxaan cambaaraynayaa runtii cidda barnaamijka caynkaasa goobta ka gudbisay waxaan maanta jirin ya ee 6 bilood ka hor lagu dhiirigelinayay sidii dardar loo gelin lahaa hawsha ismeesha goobta ka socda isbitaalka cidda maanta ku soo beegtay runtii aad baan ugu soo jeedaa arrinta noocaasa sidoo kale waxaan jecelahay inaan ka qarayo ya dadweynaha walaalaha ilaha diaspora ku sugan ee barnaamijka caynkaasa ee maanta arkeen oo haysta inuu maanta jiro waxaan caddaynayaa barnaamijkaasi maanta waxaba yaraatee ka jira inaanay jirin gacmo wada jirana yaa cid kasta u adeegaysa bulshada arrinta noocaasa ku saabsan inay gacmo wada jira maanta ku wada socdaan jecel yihiinna inay uga faa'iideeyaan wixii ummadooda ku soo deeqay waxaan intaasi sii raacinayaa anigoo ah gudoomiyaha degmada Xariirad Abubakar Xasan Guuleed inaan kaalin kasta oo goobtan looga baahan yahay isbitaalka degmada Xariirad oo ku aadan sidii loo kordhin lahaa adeega caafimaad ee ummaddan haddii tahay wasaaradda caafimaadka haddii tahay hay'ad saafala intaba aan diyaar u ahay inaan kaalinta caynkaasa xidhiidhinteeda inaan sidii loogu talagalay buuxiyo insha allah waxaan ku rajo weynahay kaalintii ummadda ka maqlayday inay sidaa ku buuxsami doonto ilaaha mudkay arrinta noocaasa qadarkiisa ay ku dhacdayna aad baan ugu mahadnaqayaa mahadnaqaan la koobi karin in ilaaha macbuudka loo soo jeedinay barnaamijka wada jirka ah ee ay adeegayaasha halkani ku wada socdaan ee kaalinta caynkaasa ee wada jirka ah hawshii caynkaasa ay mar kastaba ay u adeegayeen ummadoodu inay isku tiirsanaadaan gacmo wada jir bay wax ku gooyaan iyagana talada caynkaasana waan soo jeedinayaa oo maanta isku duubnida isku buugan yihiin inay sii xoojiyaan ayaan iyagana ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum ugaas Mustafa General Hospital oo ah araxda waxqabad ee sanadkii tagay ee qurba joogta gobolka Selel oo wax ka qabtay baahiyihii ugu badnaa ee dhinaca adeegyada bulshada ee gobolada Selel City ayaa la filayaa inuu si toos ah u hawlgali doono wareynta sanadka 2014 kaasi oo baahiyo badan oo dhinaca caafimaadka ka tari doona magaalada Xariirad iyo nawaaxigeeda Hanawaala Daahir Shinila News Xariirad.